كسر جوابتين يسويرتك كما كلن كمان كان زوجي كلن كسيدي مسؤولين تها كان استعداد وشيفتي وكسر بسيء هاي هو مرينتا waxay noo jeceshahay magaalada maanta waxaad moodaa inay yeelatay nasiib weyn waxa uu yeelatay labada nin oo loo magacaabay ninna gobernatooraha ninna loo magacaabay duqa magaalada waa laba nin oo hawshaas loo xilsaaray aan ku cusbay ninna hore buu siin dadka magaalada uga ahaa ninna wuxuu ahaa xildhibaankii degmada waxay iyagu qaban waayaan cid qabanaysa oo kala duwan jirto magaalada tani dayaca iyo dhibaatada iyo waxay u baahan tahay nin iyaga hadda faraya oo u soo sheegaya ma uu jiro waayo waa waxay ka warqabaan maanta kama warqabaan waxay ka warqabeen awal iyagoo banaanka ka joogay oon xeelka haynin hadday jaanis u hayaan sidii ay wixii iyaga ahaa ay u cadili lahaayeen haddaba ma cadili karaan iyaga keligood su-aasha tawiye niyad kasta oo wanaagsan oo iyagu ay wadaan si kastoo ay u haytaan keligood haddii la yidhaahdo si kasta haddaad yeeshaan ma qaban karaan hawshaas iyadaa haddaysan helinin garabka isaga ahina waa magaalada waa odayaasha waa dumarka waa dhallinyarada waa qof kasta oo inagana ka mid ah qof walbaba arrintaas iyadaa dhinac buu ka geysanaya kii ra'yi fiican ka geysta kii xoogaa yaramaada ugu deeqa kii mataqaanaa habar dariiqa ku daadinaysa wasakh hadduu arko dhaayadha ka daa aday hadhow kugu soo noqonaysaa wasakhdaan oranaya kii hadduu arko meel hortiisii oo god ka samaysmay waa dariiqu gurigiisa uga soo bixi lahaa inta ciid ku shuba sima oo meeshii kale la sima hawsha noocaas oo isla qabadka weeye mid loo wada taagan yahay aynuna doonayno ilaahayna kulligeen hayna waafajiyo midaas raggaa loo xilsaaray iyo inteena kaleeto oo iyaga maanta garab siinaysa midda taas waa waxqabadkii si kaleeto nimankii culamada ahaa oo dhallinyarada ahaa oo soo dirsay oo sidii waxyaabaha loo fulin lahaa dhaqaalaha ay u baahan tahay inoo micneeyey si fiican bay inoo ku micneeyeen hal midaan ku darsan lahaa halkii litir oo nafta ah oo distributoreyaasha laga qaato 1 senti ha lagu daro halkaas way ka baqantaa waad garan kartaan meeshaas lacagta ka soo bixi kartaan ama nafto ama baansiin waxay tahay 1 senti waxay tarayso lama arko laakiin halkaas senti ha lagu daro xisaabta sheegaysa waa wax badan waxa kanaan hadda tirinayno waxyaalo aynkaas dawlado badan baa inflation ka uga baxa waxaan xusuustaa Yurub markaan wax ku baranayay 73 waxaa dhacay crisis-kii dagaalka Middle East waxaa dalkii Yurub ka istaagay petrolkii oo imaan waayay shidaalkii guryihii wax lagu kuleysto baa la waayay ilaa waxa lagu kuleynayaa waa saliid cuslayd oo motorada shidayso quraydka siinaysa waddanka sanadkaasna xoogaa qabow siyaada ayaa jiray waxaa dhacday maxaan sameynaa in la yiraahdo waxa khasab looga dhigay gaaridii in numberka blade-ka lagu xisaabsho la yiraahdo numberka fardiga ahina maalin socdo midka dhamina maalin kala han socdo waxa la sameeyay 3 goor baa hal sano gudaheed kor loo qaaday shidaalka sicirkiisii waxa kor loo qaaday sigaarka waxa kor loo qaaday khamradii inaga booskii khamrada waxay loo ku jiraa ilaa inta mamnuuc doonto qaadka isagana sicirkiisa in la badiyo sigaarka la badiyo waxa soo dhow waxaan u leeyahay waa waxo inaga dib umada u keenaysa laakiin inaga dakhliga ka soo gali karo intaasan ku waaninaaya waana ku faarsanahay wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh soo sheegin markii hore ayeeshe wax wanaagsan baa meesha ka socda arinta waad yaad loo soo dhaweynayaa la soo bandhigay oo in maaragtay gobolka loo sameeyo sanduuq horumarineed runtiina dadku wax waa bixin karaan
dhibku maaha waxbay bixiyaan arrinta dadku ay aad iyo aad ama cashuuraha la siyaadinaya ha noqoto amaba kan hadda aynu ka tashanno kale ha noqoto muddo dheer hadda lacaga badan baa la qaaday qaar jidad magacood lagu qaado qaar waxyaalo kale taakulooyin kale lagu qaado waa jireen laakiin isla xisaabtan meeshay mareena lama hayo mana aha hadda maamulka gobolka waa kansaro dawladda la hadlaya oo lacaga badan oo noocaas oo kale taa oo la iska qaado oo aan dadka hadhow talo oran war waxaas la idinku qabtay arka ayaan jirin waxa weeye hadda khadamaadkan hadda meeshaan la saaray waa soo dhaweynaynaa waxaa dhiman waxyaalo badan in culayska la saaro oo ka mid yahay sida hadda la sheegay qaadka oo la rabo cashuurta laga qaado in la eego horumarin laga qaado aan soo jeedinayo tan dawladdu ka qaato in la eego horumarinta gobolka ha laga qaado si looga yareeyo dadka cuna waxyaalaha mukhadaraadka ah ugu khatarsan buu ku jiraa oo dhallinyaradeenni baabi'iyey tan kale aan ku dari lahaa waxay ahaan lahayd airportka oo kale hadda ayaan dhaweydo aan marayay lacag $3 oo waxaa la qaadaya nadaafadda airportka la yiri waa soo dhaweynay laakiin horumarintiina ha lagu daro oo iyadana qofka meesha ka dhoofaya inkastoo aad hadda ku darteen tigidhka ku darteen ma umarayay Soomaa tigidhka ku darteen aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa anoo magaca odayaasha ku hadlaya waan la shaqaynaynaa haddii ilaahay idinka ka dhigo waxay la tahay Soomaalidu waxay ku mahmaadaa ceelna uma qodna ciidana uma maqna ammaanka magaalada caasimadda ah iyo horumarkeedu waa wax inaga ina sugaya cid kale aan la kaashanayno waa gaar laakiin cid inaga inuu ka toonyoon oo laga sugayaa ma jirto ama xagga ammaanka ha noqoto ama horumarinta ha noqoto waxaana soo jeedin lahaa in tala joogtaa laga yeesho guddigan ammaanka laftigiisa taliya jeedin loo magacaabay ciidan ahaan waa inaynu siinaa ku daraa rag odayaal oo baakaba u noqda oo gadaal ka fadhiya oo mar walba la shaqeeya oo talooyin siiya warbixin siiya maxaa yeelay siduu inoo sheegay waxa la yiri waana dirteen anaga dabayman runtii qof dambi kale looma doodi karo oo dhaqankeena maaha laakiin haddii aynu qof walba ka daba tagno qofkii la yiri wax qabo dhibay ku noqonaysaa inuu wax dambe hore u sii wado ummad badan baa inoo imanaysa sharxin badan baa imanaysa wax badan baa in ku soo siyaadaya in laga sii badiyo oo laga awood badiyo baan rajaynaya ammaanka sugistiisa oo qof walba oo inaga ah wixii ka saar iska saar dhalinyarada hadday ahaan lahayd hadday odayaal ahaan lahayd hadday dumar ahaan lahayd lala socdo xogta magaalada la siiyo maamulka iyo ciidanka arrintaas inaga inoo tahay sharaf iyo badbaado inaynu maaragtay waxayna inoo noqonaysaa inaynu ku guulaysano sidii waayada hore baan saas kale isugu maamulay marka doorashooyinku soo dhawaayeen in aynu ammaankeena gacanta ku dhigno oo dadka ku soo dhaweyno dadkuna ay ogaayeen inaynu haddaynu ku tashano aynu ka adagnahay ammaankeena aad iyo aad baan idin salaamaya wasalaamu calaykum بسم الله dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka isagoo qof waliba ka qaadanayo meesha uu ka leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xaali xaajaba allah inoo suubiyo muraadkeennana allah sahla masaa'ibtana allah inshahraa ilaah baa mahad leh intaanoo hela oo islaama meeshaan inoo aqbalay inaynu isugu nimaano innagoo maslaxad ka hadlayno waajiba ilaahaas baa mahad leh alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin aad iyo aad baan mar labaad waxaan u salaamayaa xafladdan qiimaha leh oo dadka kursigiisii iyo tayadiisii isugu keenay oo gogosha dhigay murtaqaadkaan sameeyey iyo intii soo ayidayba idinkana dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa mar labaad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa kadib abshirta allahayna waafajiyo adduun iyo aakhiraba maslaxadda iyo meesha wanaaggu ku jiro
isaga aqbali kara Allah inuu aqbalo rumaha iyo wixii aan maslaxadiina ku jirin isaga ayna ka daafici karay Allah ina ka xijaab inta kadib kulay dadkaana waa reer Puntland haddana meesha aynu joognaa waa Garowe waa caasimadda Puntland laakiin kulay بيعلنا وما مغنى عندنا وما علنا وما قلنا عندنا وما مغنى أو غير بالله هل كان هو كده هاي ما دام هو عاصمة تشوفه أما هدان ذلك إيش مريو وده غير بالله هاي سيدا الله اللي واحد رواينا ميرا هذو وذكرنا إنه يسيبسر منه لكن هدنا كلمة ديدا وحن ليهاي ورميل كسته إنه وأن جوبنا ورير بلانة وإننا هذا مدرسة جوبته وإننا أي مغلس وروح المصلحة إنه كتشوفته إنه كشغ إنه دمانتين إنه وقعمها أساسا سببته يبطه هاي وحي وحبيك يران وحكومة تران وحي سنة وحبيك ترانين وحكومة يران marka qof kastaba asagoo ka bilaabay naftiisa meel kasta uu joogo iyo martabad kasta uu leeyahay magac kasta uu ku hadlayo wixii wanaagsan in laga hadlo inta kadib kulli hadalku wuxuu u badnaa intaan waa reer Garowe waa dadka labeentiisii sidaas dad magacu ku wajahnaa nabadoonnadii siyaasiyiintii waxgaradkii culimada u diintii waxaan leeyahay marka taladu hal mid weey Soomaalida waxay tiraahdaa quraanku hadduu arifka ka xumaado albaqada kuma hagaago hebel gacan baa go'an waa soconaya hebel lug baa go'an waa soconaya hebel kallaa laga baxshay waa soconaya laakiin dunida ma jirto noole kuriyadu go'an tahay oo shaqeynaya noole ma jiro magacu doona waxa sheego ama dad iyo bilaadan ha ahaado ama dunyahaada ama dugaag ha ahaado nolosha waxaan qabaa marka jiritaankeedu inay nabad tahay haddii uusan qofku nabad haysan inuu ka dhigan yahay wax kuriyadu go'an tahay wax kuriyadu go'an tahayna ma shaqeeyaan marka haddii la helo nabad wax kasta way hagaagayaan laakiin haddii nabad la waayo waxba hagaagamayaan سبنكي هراء تطلع تاريخ دلهايو ويلكو جبادة وسنسكك حنيتشرين جبادة ويلك أيان نسكك راعيش وقف كان إسكافو بيتشري إلى حد تذكر حد يروي إسكافو ضد هايو طبعا سقوم بها يستدل لا يسكوك هايو هبين كيقولوا كلايان كفر بها نسارك مركا wiilku markii uu gabadha la haasawooday gabadhii ninkaan iska hubinays way waxay tiri warhabeelow waxaad ii sheegtaa geel xiradiisa iyo rag gogoshiisa iyo garow iidaankiisa ii sheegtay wuxuu yiri geel xiradiisa waa ku aqaano xiro meel dugsoon oo aan qashin lahayn oo diga lahayn oo waaka garow iidaankiisa waxay tiri wuxuu yiri waa subag iyo sonkor iyo haddii alla ku qadarkeeda waagaas badarkaa shaqayn jiray oo meesha haddeen basmatiga iyo laga sheegay kamay jirin halka badarka baa wadanka qeyn waaga ku lahaa marka bahalkaas si fiican inta loo tumay ama loo guday subag iyo sonkor iyo lagu daray waa geel xiradi garow rag gogoshiis waa nin dukaan waxaan daafla seexshay oo sariir loo dhigayo barkimooyin iyo waa kaas ku bartay oo iska tagay tiraadeen meesha tan inta kaliya ku taal ninkii arrintaas iyo imtixaanka ku guuleystay baan meesha wada leeyahay wuxuu yiri geel xiradiis qabiilo weey geel waa inuu doobila leeyahay dabarna leeyahay hoggaanna leeyahay geel qabiilaha u xiraam haddii aad keligin ninku isku koobo inna ma dhicinayo mana raadinayo garowga iidaankiisuna gaajo weeyo qofku hadduu gaajo ay hayso asi wax loo keeno